waxgaradka aqoon-yahanada dhalinyarada ka soo jeeda degmada Jarati gaar ahaan Tula Ciid ayaa kulan ku yeeshay magaalada Nairobi. waxay cabasho ka muujiyeen maamulka degmada Jarati oo ay sheegeen in uu bilaabay barakicinta bulshada ku nool Tula Ciid ee duleedka Jarati. axadii ayaa shaqaaqo ka dhacday Tula Ciid waxaa lagu dhaawacay 7 qof oo aan waxba galabsan. sidoo kale maamulka ayaa waxa ay xirxireen dad badan oo tuuladaasi ku nool. kulankan ayaa waxa ay ku soo saareen waxgaradka baaq nabadeed iyo warmurtiyeed. Programkan isugu nimid wuxuu yahay annagoo ah dhalinyarta beesha Beydisle ee ka soo jeeda gobolka Afdheer iyo degmada Jarati. waxaan isugu nimid dhibaato ka dhacday degmada Jarati shalay welina sii socoto inta cabaar ahna ay ka digayeen dadka dhaqanka iyo culimada iyo ahlu caqliga. dhibaatadaas oo shalay galaafatay ilaa 3 qof inay ku dhaawacmaan ayna dhaawaceen ciidamada dariiska dawladda xiran ciidamada dawlad deegaanka Liu Police. waxaan ka codsanaynaa dawlad deegaanka mas'uuliyiinta ugu sareeya ee uu ka yahay madaxweyne Mustafa Cagjar arintaas si degdeg in loo farageliyo waxna laga qabto. waxaan baaq u diraynaa isla markaasna aan eedeynayna hoggaanka nabadgelyada dawlad deegaanka Soomaalida Dayib Maxamed in asagoo ku magacaaban hoggaanka nabadgelyada ciidamada ka tirsan ciidamada dawlad deegaanka Soomaalida ayagoo wata uniformkii iyo dareeskii dawladnimada inay oday waayeel oo 80 jir ah oo reebaadiya oo iska rafaadsan meesha uu deganay in inta loogu yimaado la yiraahdo niyahow meeshan ka guur dad la dijinaya. marka uu ka hadlay oo dhahay waxa weeyaa xaq uma leeyihiin meel aan deganahay gurigeyga uu ka dhisan yahay beertayda ku taala in ay iga barakicisaan in xabad wajiga lagu dhufto. arintaas waxaan ka codsanaynaa hoggaanka nabadgelyada si degdeg ah inuu waxa u farageliyo tilaabo cad oo lagu qanci karo oo qurba joog dalay dibad qabiilka magacaan leh ay ku qanci karaan si cad noolo tusi. madaxweyne waxaan ku leenahay si cadnaan kaaga codsanaynaa annaga ma diidanin dad ehel ah oo diris ah oo dhibaato soo gaartay oo fatahaadaha ilaahay keenay ay ku dhacday badbaadintooda iyo samato bixintooda annaga horta kama soo horjoodno balse dadkaas ehel baanu nahay diris baanu nahay dad isdhalaan nahay dad iskaashadaan nahay. dawladda annaga kaga murug badan kagana xanuun badan dhibaatada ku dhacday annagana way nagu dhacday. laakiin waxaan rabnaa madaxweyne inaan kuu sheego inay isku xuquuq yihiin kan fatahaadaha ka barakacay iyo kan shaarka dawladeed lagu barakicinayo inay isku xuquuq yihiin oo dawladnimada ay u siman yihiin oo dad shacaba muwaadiniin Itoobiyana oo maaragtay dawlad deegaankaas u dhashay ay yihiin. marka in ninna fatahaada ku dhacday nin kale xabad loogu dhuftay meeshay ka shaqeynaysa madaxweyne waxaan rabnaa inaad jawaab cad naga siisaan kaaga fadhinaa. tolka meesha degan Jarati degan ilaahay ku beeray beertoodii xoolahoodii dhaqankoodii kaab u degan dhibaato lagu haayo dhibaatadaasna kuma haayo dad shacab ah waxa ku haaya dawladii aad hoos harsanaysay oo deegaankaaga ahayd oo maaragtay dawladnimada aad ka tirsanaysay markay aad dhibaato kuuga hayso ay ku dilayso ay ku xabadaynayso maalin kasta waa wax dhibaatadeeda leh waa arin aad looga xumaado waana ka dhiidhinaynaa waxaan aqbali karnana ma aha dhammaan waxaan leenahay intay qusayso hay'adaha amniga kamaneedka gudoomiyaha gobolka midka maxaan ku raadaa Jarati dhammaan ninka oo maxaan ku raadaa ay haysta ciidanka oo komishineerka dalka waxaan idin leenahay dhammaantiin arintaas annaga aad uga xunahay mana aqbali doono nin baloodkiisa looga yimaaday ee haddana shaati dawladeed lagu gumaaday ee haddana la xasuuqay ee dhaawaciisa aan la daryeelaynin waa wax aad iyo aad looga xumaado haddii aan nahay dhalinyarada beesha Beydisle ee ku nool magaalada Nairobi. baaqayna baaq u daaran yahay waa baaqi odayaashii ay shalay joodiyeen. waxaan leenahay oo cod dheer ku leenahay hay'adaha samafalka xuquuqul insaanka dawladda dhammaan qof walba oo codkayna maqlaaya macalimiinta iyo warisgaarsiinta hawsha ayada in ilgooniya loo yeesho dadka ay fatahaadaha ay saameeyeen waqtiga lagu jiro la og yahay in looga dara xabad iyo barakicin waxaan ognahay qabalada nafteeda Tula Ciid
inaynan xuquuq lahayn. ugu dambeyntii ayaa qodobada ka soo baxay warmurtiyeedkaasi warbaahinta la wadaagay xasan dhimbil. si kulul cambaaraynayna dhibka ka taagan welina ka socda qabalaha Tuulo Ciid ee degmada Jarati. dhibkaas oo ay wadaan maamulka degmada Jarati gaar ahaan gudoomiyaha degmada iyo hogaamiyaha iyo hogaanka nabadgelyada degmada Jarati. waxaan ka xunnahay in gudoomiyaha degmada isaga oo adeegsanaya magaca dawladda inuu iska horkeen iyo isku hubayn ka dhex wado dadka walaalaha ah ee wada degan. sidoo kale inay khalad tahay in dhul iyo beero ay dad leeyihiin dad kale xoog lagu dejiyo. waxaan baaq u diraynaa dhammaan qaybaha kala duwan ee dawladda oo uu ugu horeeyo madaxweynaha deegaanka mudane Mustafa Maxamuud Cumar iyo maamulka gobolka Afdheer inay si degdeg ah xal uga gaadhaan dhibaatada lagu hayo dadkaas. sida aad ogtihiin waxay dawladda deegaanka Soomaalida xadidaad iyo xakamayn u samaysay deegaamaynta cusub. sidaa darteed maamulka degmada Jarati waa inay u hoggaansamaan sharciga. ugu dambeyn waxaan tacsiyadaynaynaa oo aan xanuunka la qaybsanaynaa dadkii sida sharci darrada ah ciidanka deegaanka xabadda nool ula dhaceen iyagoo ka amar qaadanaya gudoomiye Shaafi. waxaan leenahay dhaawaca Alle ha bogsiyo. sidoo kale waa in si degdeg ah loo sii daayo dadka xabsiyada ku jira ee loo xidhay arrintaas. macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo. haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama Dahabshiil si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadala.